bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada caalamka. barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta uu tv-ga hoyga banaadir ku leeyahay magaalada caasimadda ee muqdisho. qodobka aynu barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid noqonaya Ukraine oo ah wadan ay la daashadeen dagaalo u dhexeeyay iyaga iyo Ruushka ayaa haddana madaxweynaheedu uu diiday inuu Mareykanka u saxiixo sharci u ogolaanaya kheyraadka ugu badan ee wadankaasi Ukraine. maxay tahay sababta? barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. haatana u diyaar garooba barnaamijka oo faahfaahsan. madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay ama shir jiraa'id ku sheegay isla markaana ku cadeeyay inuu diyaar u yahay inuu ka tago xilka madaxweynaha haddii ay xal nabadeed oo degdeg ah u keenayso wadankiisa. Zelensky ayaa sheegay in haddii lasoo bandhigo damaanad qaad amni uu iska tegi doono. waxaa kaloo uu soo bandhigay sidoo kale inuu xilka ka degayo haddii Ukraine ay ku biirayso isbahaysiga NATO. Zelensky waxa uu ku celceliyay inaysan ka dhici karin doorashada Ukraine iyadoo lagu jiro marxaladan, isagoona markaa isweydiiyey sidee tani ku dhici doontaa, sidee ayayna ciidamadu u codayn doonaan, sidee bay u codayn doonaan dadka dibadda jooga Kharkiv gobolada kale ilaa Samay, sideen ku aqoonsan karnaa doorasho aan kala bar dadweynaha codayn doonin, ayuu yidhi. madaxweynaha Ukraine ayaa diiday inuu saxiixo heshiis uu Mareykanka kheyraadka Ukraine ku helayo, isagoo ku andacooday 10 jiil oo dadka reer Ukraine ah kheyraadkii ay adeegsan lahaayeen inuusan hadda bixin doonin qiimo kasta oo loo soo bandhigo. Ukraine waa tii ay ku burburtay dagaaladii ay la gashay wadanka Ruushka, kaasoo ilaa iminka la tacaalaya marxaladihii dagaalka, isagoona weli dhexda uga jira dagaaladaasi. wax waawaan ah ma jirto ilaa Ukraine ay la soo safteen wadamada ugu badan ee reer galbeedka, halka wadanka Ruushkana uu isu soo taagay dhan qura, isagoona wacad ku maray Ruushka in uu baabi'in doono wadanka iminka lagu magacaabo Ukraine haddii aysan ka mid noqonin wadamada ay iyagu maamulaan. madaxweynaha Ukraine ayaa waayidii dambe waxa uu ahaa mid dibad joog ah, isagoona iska wareegaya wadamada Ameerika iyo Yurub. gaar ahaan bilooyin ka hor ayaa lagu arkayay gudaha wadanka Mareykanka, kaasoo doonayay madaxweynaha mar kale talada la wareegay ee Donald Trump in uu waqti la qaato ee ku saabsan sidii uu isna qodobada ugu muhiimsan ee uu diiradda saari doono madaxweynaha cusub ay ka mid noqoto dadaalada lagu joojinayo colaadda ka taagan wadanka Ukraine. si kastaba dagaalka Ukraine ayaa waxa uu gaaray heerka ugu sareeyay ee looga cabsado adduunka, dagaalka saddexaad ee dunida, heer looga baqo dagaalka saddexaad ee dunida. guud ahaan barnaamijkii faaqidaada caalamka ayaad kala socoteen hoyga banaadir TV. waa naga inta intaynu barnaamijka ku xigo ku kulmi doono hadduu eebaweyne u raali ka noqdo, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.